madaxweyne adigu Mustafa ahaan deegaanka xageed u wadaa meesha sawirka aad u wado ku qorshaysan bal noo sawir caawa madaxweyne deegaankeena waqti wixii ka soo dhacay ma u diyaarisay ciidankeena sharci qaban doona haddii adiga kolka ama isbedel dhaco ama macnaha xukunkii hore ka daran uu yimaado ciidankeena sharci qaban kara oo bulshadooda ay ugu naxariistaan ma u diyaariseen nidaamka qandaraaska loo bixinay intii dambe isbedel ku dhacay waxaa jira khaladaad badan baa ka jira for example waxaad arkaysaa mashruuc 300 milyan ama 400 milyan oo la siinayo qof capacity-giisu low yahay su'aasheedu waxa weeyaan xafiiska waraabka wuxuu ka sameeyay qabalaha Baka iyo degmada Go'aangada inta u dhaxaysa daraasaad 30 kilomitir weeyaan wadadaasna in la bilaabay ahayd sanadkii labaad hore maxaa loo bilaabay hor istaagay madaxweyne deegaankeena waqti wixii ka soo dhacay ma u diyaarisay ciidankeena sharci qaban doona haddii adiga kolka ama isbedel dhaco ama macnaha xukunkii hore ka daran uu yimaado ciidankeena sharci qaban kara oo bulshadooda ay ugu naxariistaan ma u diyaariseen 30 kilomitir jirtay waxaa loo joojiyay miisaaniyad la'aan qof kastaaba tuuladu ka soo jeedo mashruucii maxaa loo joojiyay haddaan caawin is weydiino waan ku rafaadaynaa waxaa loo joojiyay miisaaniyad la'aan simple as that waa intaas kuwii lacagta loo hayay ee loo qabtay ee kontraatka heshiiska lagu galay ayaa socon waayo lacagtii loo qabtay iyo budgetka hadda aan sugayno inaan helo 3 sano oo xiriir miisaaniyadii ma kordhin dalka xaaladda guud ee dhaqaalaha dalka ay la bitaabay saas loo joojiyay ciidanka iyo sharci ma loo sameeyay waa loo sameeyay haadihii cadaaladda iyo qaabkii ay u shaqayn lahaayeen wacadihi shacabkii waa xor inay dhibaatooyinka iyo wixii lagu sameeyo tacaddi ay diidaan laakiin dhacdooyin tacaddi ma dhacayaan iska daa deegaanka Soomaalida laakiin adduunka meel boolis baa wax biyay boolis brutality waa issue dhan oo jira marka qaarkood waxaad soronaysaa yani haddii aad tiraahdo waxna u dhaca adduunkana inaad u qilsamaynayso wixii ma aha inaad u qilsamaynayso halkiis inuu dhaco maaha laakiin haddana wax abnormal oo adduunkan ka dhicin inaga inagu kama jiray agteena marka si guud hadda bileys dadka dhibaateeya oo dhibaato u geysta laguma tilmaami karo kuwa badan oo bileys oo dhibaato loo geysto la dakhreeba maalba soo dhiga social media kuwa boolis oo khaldamo dad dhibaateeya lahayd laakiin by and large deegaankeena hadda xaalad ka jirta xaalad ciidanku amniga uu sugo isagoo ilaalinaya xuquuqda insaanka weeyaan dhacdooyin khaldamo ka dhacayaan dhacdooyinka khaldan in la saxana waa lagu jiraa qiimeynteedii talaabaqaadkeedii maalin walba waa la sameeyaa damaanada ugu weyn laakiin ee dhibaatadii shilay jirtay inayna soo noqonin ciidanka ma waa shacabka ayay tahay inuuna ogolaanin wixii xaq gudub ku ah isaga in lagu sameeyo ama hogaamin deegaan ha samayso ama hogaamin marka ka timi ha samayso marka damaanadu waa shacabka haddii laakiin ay shacabku awoodooda iyo inay diidaan wax khaldan ay garan waayaan meesha lagama saari karo damac kale oo khaldan oo shakhsi la xiriir inuu iman karo markii la rabo uu iman karaa si aan u dhicin shacabkii taasi taala xukuumadahana systemskii nooca inoo diidi lahaa oo ahay dadku inay xuquuqdooda bartaan in saxaafadda xor ahaato in waxyaalaha xun ee noocan waa khalad la yidhaah waa la sameeyaa isleeyahay waa la qabtaa isleeyahay madaxweyne waxaa jira sicir barar ba'an oo deegaanka jira dadka inta badan arrimaha dhaqaalaha eega waxay sheegaan in qaabka canshuurta aynu u qaadno ay qayb ka tahay sicir bararkaas tusaale ahaan kiishka sawirka ah ee ka soo baxa Dirdhaba ee u socda Hargeysa oo kale 15 degmo hadduu sii maro 15 ka in canshuura ma laga yaabaa marka qiimihii oo dhabala ayaa laga yaabaa inuu gaaro goobtii marka arrintaasi waan kaga duwanahay deegaanada kale marka la eego marka maxaa taasi qorshe ah mid labaad iga raali noqdo beeralayda soo saara dalaga basasha ee gobolka Shabeelle gaar ahaan webiga Shabeelle jiinkiisa sanadkan waxaa jiray dhibaato ka qabsaday oo gaar ahaan basasha ku dhacay oo kumanaan hektar ay ku khasaareen ilaa iyo hadda ma jiro wax muxuu ahaa daraaso laga sameeyay waxa sababay iyo qaabkay u soo noqon karaan iyo wax gargaar oo lala gaadhay midna waa maasantiin arrinta sicir bararka waa run qaabka keelayaasha lacagta loo qaadaa inay kaalin ay ku leedahay kaligeed ma aha qofka dee ganacsadaha ee Dirdhabo ka soo qaada sibid isaga laftiisu qiimaha uu ka siinayo jijiga
iyo kuwa afdheer ka siinaya isku mid maaha mar walbaan garanaynaa sababtu keliya maaha uun canshuurta waddada lagaga qaadayo distanceguna qayb buu ka yahay meeshuu geynayo shidaalka kaga baxaya kharashka uu gelayna qayb buu ka yahay laakiin contributing factor ma yahay haa uu yahay in badan waa la soo qaaday xafiis ganacsigana waa la amray in arrimaha noocaas ah laga qabto waxyaalo meelaha qaarkood ka hagaaga way jiraan marmar bay hagaagtaa mar bay soo laabataa laakiin waa arrin runtii lagu baraarugsan yahay in la saxana mar walba diyaar loo yahay taa keliya laakiin sicir bararku ma sicir bararka waxay keenay waan ognahay xagga wax soo saarka si guud sawirka dalku markuu go'ay warshadiyo fariista baa ka mid ahayd marka issueskan ballaaran ee noocaas ah la xaliyo laakiin arrintan keelayaashana in hoos loo eego dardaaranka waan qaadanaynaa waana dardaaran sax arrinta shabeel iyo basasha waa arrin specific xafiiska in loo gudbiyo ayay la tahay xafiiskana waan gaarsiinaynaa haddii lacala aad gaarsiiseen oo jawaab ka weydeen annaga gaarsiinaynaa daraasaad in la sameynayo xogta waan helay in cudur uu jiray meeshaas laakiin daraasaadkii iyo wixii weli maanan aanu isoo gaarin inaan wasaaraddii wareysano oo aan iyadoo anoo xog buuxaya ka bixiyaa fiicnaan lahayd nidaamka qandaraaska loo bixinayay intii dambe isbeddelku dhacay waxaa jira khaladaad badan baa ka jira for example waxaad arkaysaa mashruuc 300 milyan ama 400 milyan oo la siinayo qof capacity-giisu low yahay marka waxaa jira barbalaniga dhalinyarta oo dhammaan qof kasta wuxuu isku dayay inuu qandaraas qaato marka waxa uu dhib yareynaya nidaamkii dawladda uu dhib yareynaya for example marka payment-ga bidka la samaynayo qofka figure-ka uu xadi karaa ama si qaldan baa lagu sheegi karaa marka figure-ka hadduu helo isagoon ahayn financially uu saxay ka soo qaad isagoo qofkii oo dhammaystirnayn technical ahaan shirkad aan awood lahayn yaa waxa la siinayaa mashruuc weyn oo 300 milyan marka taa waxa ka imanaysa inuu mashruuc failer noqdo madaxweyne maxaa idinka qorshaysan inaad tayeysaan shirkadaha qandaraaska aad siinaysaan sida for example jijiyo kale iyo godoy kale waxaa la siiyaa wadooyinka shirkad awoodooda leh lala xisaabtami karo for example qofka aan awood lahayn qandaraaska weyn la siinayo dee suu doonuu samaynaya markaaba isaga lafiisa yaa misdhisaya marka tala bixin baan raacin lahaa madaxweynuhu suu ka dhawaajiyey waxaa jirta shirkadaha wakaaladda qodista ceelasha designka wakaaladahaas tii la baabiye liigoo kale wakaaladahaasu dhammaan markii hore shaqo abuur badan bay u samayn jireen injineerada u samayn jireen waxay ahayd meel injineerada deegaanku wax ku bartaan bay ahayd iyagoo ka samaynaya dhaqaale ahaanna way ka samayn jireen oo ay ka heli jireen cilmi ahaanna way ka heli jireen hadda ma jiraan muddo aad 3 sano injineerada deegaanku dhammaan way iska fadhiyaan wax shaqo ay qabtaan ma jirto marka anoo ku hadlay afka injineerada madaxweyne maxaa idinka qorshay shirkadaha inaad soo celisaan idinkoo nidaamkeedii saxaya 300 milyan qandaraasyaal dad capacity aan la siinay way jirtay qandaraasku sidoo ah waan ognahay markii la iimayay laakiin hadda ugu yaraan shirkadaha isku dacweeya ogaashii aniga dadkii banaanka socday ee qandaraas hal ay siila lahaa waa la maariyay wakaalad qandaraasyada qaabilsan baa la sameeyey xafiisyadii tartan iyo dhijiyaan baa sharci baa la soo saaray meelaha qaarkood goldololooyin iyo isdhaafsi iyo waxaas ma ka dhacaya laga yaabaa laakiin si guud cabashadii ballaadhneed ee shacabka ee la xiriiray maamulka qandaraaska waa la xaliyey shirkaduhu laakiin weli way kala caban karaan oo waa la iga helay shirkadu way odhan karaan qandaraasyadaas nidaamkeediina waa lagu saxay baan isleeyahay wax badan oo harsan ugu jira arrinta wakaaladaha jiray injineeradu ka shaqeeyaan anuu arrintaa waxaan u aanaynayaa wakaaladii meesha ka baxay uma aanaynaya waxaan u aanaynayaa hoos u dhaca ku yimid mashaariic cusub baan u aanaynayaa haddii mashaariic fara badan 3 sanadoodba mashaariic cusub inaan qaban haddii sanadka dambe 400 mashruuc la qabto 400 injineer ama 800 injineer oo consultant iyo injineer oo ka howlgal waa la helayaa marka si guud dhaqaaqa sektorka dhismaha oo hoos u dhacay ayaan u aanaynayaa laakiin hoos baan u eegaynaa haddii jiraan waxyaalaha aan arag oo kale haddii jiraan mudane madaxweyne iyo marti sharafta madashan bilan waan salaamayaa dhammaantiin mudane su-aasheedu waxay la xiriirtaa dhinaca maamulka anigu shakhsiyan haddii aan waxaan ka socdaa dhinaca warbaahinta ama shakhsi ku lug leh dhanka warbaahinta madaxa bannaan su-aasheedu waxay la xiriirtaa dhinaca maamulka isdhexgalka bulshada iyo kobcinta dareenka qowmiyadeed iyo la dagaalanka qabyaaladda nidaamkii kaa horreeyey waxa iyo hoggaankiisii waxay ku dhiiradeen inay sameeyaan isku day inkastoo eedo badan ay dul hoganayaan oo inay eed la'ayn wixii loo yaqiino dib u curashada dhanka maamulka
nidaamkaasi waxa uu sababay in muwaadiniin Soomaaliyeed ay guud ahaan gobolka ay adeeg bixiyaal ka noqdaan inay tagaan degmooyinka magaalooyinka ilaa heer xaafadeed ma jirin taariikhda dhigaalada marka laga daba tago gobolkeena haddii xitaa la eego xilliyadii adkaayna soo marnay tusaale ahaan gobolkan oo kale maamulkii Hararge dad Soomaali aan ahayn baa gobolka ka adeegay xilliyadii adkaa gobolkeena waxa ka adeegay muwaadiniin Soomaaliya oo hariyeeya oo taariikhda ku suntan iyagoo oo dadkooda ugu adeegay itaalkooda dareenkooda qowmiyadeed iyo kartidooda si hufan qabyaradan hoos dadkuna ay jeclaayeen marka ma jirin dad Soomaaliyeed oo diiqad ka qaba qof Soomaaliya oo adeegaya xilli ma maamulkaagu ku talaabsan doonaa muwaadiniin Soomaaliya oo si siman uga shaqeeya magaalooyinka gobolka guud ahaan haday tahay degmo ilaa maamulka hoose xaafadaha sidee baa isdhexgal loo abuuri karaa maamulkii ka horeeyay ugu yaraan waxyaalihii markaan la sheekaysto dhinacyada kala duwan ee darafyada gobolka ugu yaraan xitaa hablaha dib u curasho lagu keenay magaalooyinka oo isdhexgal dhanka guurka ah ay la soo noqdeen madaxdii maamulkii degmooyinka xilligaas hawlgalay maxaa caqabado maamulkaaga hortaagan ma moogani in aad ku dhiiratay dhanka garsoorka iyo cadaaladda iyo hay'adaha amniga inaad ka samaysid in ay adeegaan gobolada ay ka adeegaan xilli ma ku talaabsan doontaa maamul dadka Soomaaliyeed si fiican dareenkoodana dhisa qabyaaladana hoos u dhiga waa maadsantahay arrinta dib u curashada anagu maana baabiin shacabka diiday oo ka hor yimid marka afkaar ahaan dib u curashadu meel wanaagsan oo la gaadho oo lagu hamiyo aragtida falsafada aanu muwaafaqsan anu waxaan aaminsanahay nidaamka la isku maamulayo iyo tayada hogaamintu xiriir inay la lahayn dib u curasho maamulkii naga horeeyay dhibaatooyinkii xagga maamulka ka jiray dib u curasho iyo jirtay sameynayay haddii la leeyahay marka waagaas maamulka ka fiicnaa aan indicators na qaadano hoos u eegno cadaaladda maamulka waxqabadka aan eegno laakiin assumption-ka ah haddii magaalo 100 maayo dadka maamula ay reer 100 maayo noqdaan qabyaalad baa jirta sax ma sida waddanku u dhisan yahay deegaankeena Soomaalida markaynu nimaadno waxaan ku shaqeynaa ethnic federalism deegaanka Soomaalida waxa maamulaya Soomaaliland leedahay marka tira deegaanka Soomaalida Soomaali maamulaya gobol ka mid ah gobolada deegaanka cidda joogtay ee ku nool gobolkaas cid u shaqeyso oo cadaalad ah lagama helayo ha looga doono gobol kale arinta xitaa tijaabadii aan ka sameynay hay'adaha cadaaladda imika calaamad su'aal baa saaran waxa soo baxaysa oo haddana daraasadii u dambeysay ay muujinaysaa dhalinyartii gobolada cadaaladda ka shaqeynayay ee aragtida la qaatay ahaa mar hadduu yahay reer hebel buu eexanaya shacabku maadaama ay iyagu soo hadlayeen markii gobol kale la geeyay ee meel xaaskiisii ka fog mushaarkuuna u kordhin u tegey in haddana cabasho kale ay timid ah yacni laaluushkii baa kordhay iyo qofkii noloshiisii inuu maareeyo haddana wuxuu u baahday baahiyo dheeraada ka soo baxay marka anagu dib u curashadu kolkii aan nimid nin walba meeshuu joogo ka soo cararay hadduu ficneed maysaa lagu haysto qof kastaba gobolkuu joogo ka soo cararay markuu naan ku duway jijigaa la isugu weydiyo juwankii la wada wato aragtida marka maxaa lagu saxayaa maamulka waxaa lagu saxayaa doorashooyin local elections magaalada jijiga yaa maamulaya shacabka jijiga waa inuu go'aamiya haddii taa la sameeyo magaalada u baraya maamulaya shacabka u baraya adduunkana waa sidaa local election baa la qabtaa constituency kastana cidda ka soo jeedan baa maamusha aqliyadda ciddi ka soo jeeda meesha waa qabyaalaysto cid meel kale laga keenaa saxaysa scientific ma sax ma laakiin waxaa jirta gobolada wada degan yahay baa jira marka meesha dhaliisho aan qaadan karna saxdii waxa weeye gobol hebel gudoomiyaha loo sameeyay gudoomiyihii gobol hebel loo sameeyay reer buu noqday doorka dambana haddii reerkii lagu celiyo aragtiya waxa soo baxaysa gobolkan reer hebel baale sidaa daraaddeed arrintaa ha la saxo maadaama dad diversity ay ku nool yihiin gobollo laga saxay baa jira kuwa aan laga saxin baa jira oo sidii lagu bilaabay ilaa hadda ku socda halkaa dhaliisha ku jirta in la saxo anu waan qabaa waana saxaynaa gobollo la saxay baa jira oo maamulada dadkii deganaa loo isbedeleen iyo gobollo weli sidii lagu bilaabay ah oo marka ay soo baxayso aragti ah gobolkan reer hebel baale taasaan u arkaa inay tahay ficilada in la saxo laakiin degmooyinka dadka jooga ha maamulaan dadkii ku dhashay ee aaga ka soo jeeday wax ku bartayna ha ka shaqeeyaan dhibaato taasi ma laha wax dhibaato leh waxaana qabaa aqliyadda shacabku inay taa qabaan yaan qabaa sida dadka baarlamaanka ee laga soo dooranayaba ay degmooyinka uga imanayaan local election haddii la qabto
waxyaalaha imika isku tuturka la xalinaya dhibaato ballaaran oo qabyaaladda lagaga bixi maayo in la yiraahdo dadka aan ka soo jeedin aagan aan u dirno lagaga bixi maayo waxa lagaga bixi karaa in system iyo dawli iyo nidaam la aamino tusaale qofka dijiga ka dirto ee gobolka doolo u dirto haddii dadku say u fikirayaan la raaco waxaad u qaadanaysaa inaad qabyaalad ka saartay laakiin markuu halkaa tago periodic table-kii qabiilka ee jiray chemistry-gii meel buu ka soo gelayaa nin baa u arkaya waa reer hebel oo odhanaya marka Soomaalidu maadaama ay qabiil isku macnaynayso iyadu aragtideeda halaleekiisiyo nidaamka uma qabo waxaan qabaa gobolada kale in rotational uu noqdo oo dadku ay iska dhex arkaan oo taasina ay ku timaado nidaam dawli iyo xisbi ay ku timaado ee reer gobol sheeganaya laabta garaacaya inuu jirin reer degmo sheeganaya inuu jirin dad degmo aan dad ku wada nooleen ma jiro dadku waxay diidan yihiin in dad ka soo jeeda degmadu maamulo ma waa in cid khaasiisa siiso meesha marka waxa la xalinayaa problemkii waa ka weeyaan oo hadda aan anagu dareensanahay daraasaadka naga inay soo saarayaan taasaan u arkaa qabiilkana qofka mas'uulka ee loo arko inuu go'aankiisa la diidan yahay in qabiil lagu sheego waa iska common waxa reebel baa ujeeda Soomaaliga marka aragtiyo reebel waa in system lagu soxo hal shakhsi uu meel uu maartay ku tagfal kara ay jirin baan u arkaa nidaamka doorashooyinka saxaya wixii caqabadaha ka jira qaarna waa kuwa aan ka garaabay u baahan in la hagaajiyo meelana waa la hagaajiyo meelana waa dhiman yihiin siyaasadda iyo horumarinta iyo xukuumadda PP ee barnaamijyada weydin qorshaysan tahay siyaasadda dhismaha jidadka magaalooyinka wadajirka iyo waxbarashada inaan ku salaysan deegaanka wadajirka bulshada wadajirkii dadka baahan bulshada qaybaheeda kala duwan ka mid yihiin dadka baayaha kaaga qaba ahaan iyo bulshada dadkooda la gaadhaynin xuquuqaha dhaqaale iyo midda siyaasadeed ka maqan miyayna maxay ka qorshaysan isbika ahaan iyo hogaamin ahaan ugu diyaariseen in ay hogaaminta deegaanka iyo dalka iyo qaybaha kala duwan bulshada baahiyaha gaarka ah arrimahaas waan ka hadlay mar hore maxaa idinka qorshaysan su-aashaas ma adeegyada la bixinayo ee caafimaadka iyo iskuulaadka iyo qorshaha ku jirta of course istaraatiijiyadda disability-ga ee guud in lagu daro weyn in si guud constructionska la sameynayo qayb lagaga dhigo oo meelahan disability friendly ama meel dadka ku habboon dadka baahiyaha gaarkii qabaan in la sameeyo waxay u baahan tahay in horta hay'adihii ka shaqayn lahaa waxaan la xoojiyo marka waa in policy-gii hoos loo eego institution ka shaqeeya arrintana waa in loo eego oo la dhiso wey marka kadib hay'adihii kale designadii marka la sameynayo in dee ay ku daraan arrintaas cid kala xisaabtanto waa gaab jira oo in la buuxiyo u baahan mudan madaxweyne ana su'aasheeda toos u galaya waxaan rabaa inaan caawa halkan kaa weydiiyo degmada Dhakaasuufte waxaad ka samayseen riig dowladda aad baan uga codsanay way noo samaysay ma sha Allah waxaa ka jiro baahiyo fara badan oo sababta ah waxa lagu keenaa biyo dhaamiyo biyihii degmada 7 kiiloomitir bay u jiraan marka degmadii waxaa jira dad masaakiin oo danyara dadkii ma awoodaan inay biyaha iibsadaan sababta marka maxaa keenay in miyay qorshaysan tahay oo xukuumadda may ka go'an tahay in degmada biyaha la soo gaarsiiyo talabaad waxay tahay mudan madaxweyne gobolka Liibaan waa gobolada ugu dakhliga fiican deegaanka waana waxa ka jira wada xumo adiga beendahaaga ku soo aragtay madaxweyne ahaan maxaa in kaga qorshaysan ka qabashada gobolka arrinta baahiyaha Dhakaasuuftu si dhow ma ogi biyo la iibinayo oo dad laga iibinayo hadii jiraan dawladda in hoos loo eego biyaha waa la iibiyaa meelaha qaarkood sababta ceelashan iyo mashiinada iyo wixii lagu wadi lahaa waa inay soo saaraan wakaaladu way iibin karaan marka cilada jirta aan eegno biyo la'aan baa jirta mise qiimaha laga iibinayaa badan taa inaan eegno u baahnaan doontaa hay'adaha khusayso way maqlayaan kolay daba geli doona ma filaya halka kaliya maaha meelaha kale oo la mid ah jiri kara arrinta baahiyaha gobolka Liibaan sida gobolada kale wax laga qabtay ugu jira wax dhiman ugu jira haddii la rabo equity-ga mashaariicda la fuliyay waan soo bandhigi doonaa daraasaadka xafiiska qorsheynta ay sameeyeen
waxaa soo baxaya aragtida dadku qabaan ee meelo gaar ah in mashaariic la geeyo inayna run ahayn inta mashruuca la fuliyey iyo lacagta laga fuliyey marka la eego ee la isku daro heer federaal iyo heer deegaan marka waxaa ila quman in fagaare kale oo kan ka duwan oo ku saabsan mashaariicda deegaanka firidkoodu waa sidee in la soo bandhigo xaggaasna gaab baa jira informationka waan soo bandhigi doonaa hogaaminta anaga laftigeeda qaarkood aragtidaas hadda ku warqabay laakiin markii qorsheynta ay soo dhigeen ka qancay baa jira marka waa soo dhigi doonaa laakiin si guud gobollada baahiyo badan baa ka jira gobol usoo qaadi kari mayno laakiin dadaal waa la wadaa in baahiyuhu ay u kala muhiimsan yihiin wax laga qabto mahadsantii xukuumadda waxaa lagu xantaa ballanta kama soo baxdo taasi miyaynay practical u ahayn meelihii cadaalad darradu ka dhacday ee qaabdhismeedka dowladda wixii ay u qalmeen aan helin ilaa iminkana fursad badanood haysateen aan la sixin miyaynay shacabkii kalsoonidii ay idinku qabeenee in cadaalad ay helaan ayna meeshaa ka bixin qaabdhismeedka dowladda in la ballaadhiyo ayaa la filayey meelaha cadaalad darradu lagu sameeyey in guddi eego markaas hawshaasi maxaa kaaga qorshaysan ilaa iminkana maad xallin iminka tusaale ahaan magaalada lafaciis oo kale waa magaalo weyn masabkeegiina may helin ilaa iminka ballan badan bay maalintaa tagtaba waxaad tidhaahdaa lafaciisa waxay heli doontaa masabkeegii muddo 6 sanaana waad joogtaa sidaas daraaddeed filashadii cadaaladda ahayd ee dadku filayey miyayna niyajab ku noqonin aad baad mahadsantahay 99 dadkii ma qancina mudaharadaad bilowday meel walba maxaa reeb lagu siiyo anagana lagu diiday marka cabashooyinka shacabka waxa lagaga jawaabay systematically daraasaad in la sameeyo criteria in la sameeyo culays badan uu jira meelo gaarana ma aha meelo cadaalad darro ka jirto degmooyinka dhexdooda kala cabanaya gobollada kala cabanaya ma aha meelo gaar oo cabashadoodu ay gaar ku tahay marka taana way jirtaa magaalooyinna si sharci waafaqsan waa loo sameeyay arrinta degmooyinkana iyadoo la eegayo criteria xilliga ay ku habboon tahay ee hogaaminta isku raacdo waa la qaadani laakiin cadaalad darro meel ku gaari ma jirto dadku haddaad waraysato nin walba wuxuu ka cabanayaa mid wuxuu ka cabanayaa dil buu ka cabanayaa iyo xaqiraad loo geystay mid wuxuu ka cabanayaa maamulo uuna qayb ka ahayn mid wuxuu ka cabanayaa muxuu ahaa meel kaloo looga exday marka meelo gaara oo cadaalad darro ka jirta deegaanka ma jirtee dadku ay cabanayaan 11 gobol meel walba dadku gobol way codsanayaan degmana way codsanayaan kuwa hadda waxaad ka hadashay meelaha hadda magaca carab dhowday oo kale beelaha degan waxaa laga yaabaa inay 1 iyo 2 iyo 3 degmo ay leeyihiin 400 kilomitir beelo degan oo hal degmo lahayn baa jira hal degmo bariga danood oo kale hadda galbeedka maxaan u jeedaa koonfurta wardheer oo kale dad degan meelo fara badan oo dad fara badan oo degan oo hal degmo xitaa aan haysan oo deegaanka ayaa jira kuwa la haybsoocaa jira oo hal degmo aan lahayn iyo gobol toona marka cabashooyinku inay miisaankooda yeeshaan baa fiican si system baa lagu sixi karaa si cabasho iyo buuqa laguma sixi karo iyo reer hebel baa yidhi meeshaas naga maqan laguma sixi karo pressure badan oo caas laakiin uu jiro waan ognahay oo aan ka garaabaynaa in laga jawaabi waayana dee cagjiidkaasi haddaan uga darayno oo dhib kale keenayno inaan u kaadino oo system iyo tiro iyo criteria lagu sameeyo inay ka fiican tahay isla qaadayna hogaaminahan madaxweyne dawladdaada waxa ay ku faantahay inay tahay dawladda ugu aqoonta badnayd aqoon lagu keenay kuna shaqaysan haddana deegaankeenu wuxuu ku jiraa sanadka dhan rixda tashatay wasayf oo aan ka wado jilaalkana abaar iyo biyo la'aan iyo hawl gugana fatahaad iyo magaranaysa ayna waxba ka faa'iidin madaxweyne waxaad og tahay markaa deegaanka timiday waxaa jiray tacadiyo fara badan dhibanayaal fara badan baa deegaanka jooga dhowaan hooda laga qaaday mas-uuliyiintii xidhnaa kaa horreysay adiga dowladdii hore ahayd hawshii aan u sheegaynay aad u sheegayseen dowladdiinu shacabka ee ahayd in ay dadka dhibanayaashii xuquuqdooda heli doonaan oo lasla xisaabtami doono halkii ku dambeysay waaba la sii daayay dee mas-uuliyiintii madaxweyne adigu mustafa ahaan deegaanka xaggeed u waddaa meesha sawirka aad u waddo kuu qorshaysan bal noo sawir caawa ugu dambaynna madaxweyne waxaan kaa codsanayaa anoo shacabka caasimadda ku hadlaya codkooda waddada halbowlaha ee magaaladu haddaad og tahayna waan ku xasuusinaya haddaadan ogin waan kuu sheegayaa waddada halbowlaha ee magaaladu way xidhan tahay wax loo xidhayna lama garanayo si kastaan u baadhnay madaxweyne waddada shacabka bajaajyada ha loo furo inta u dhaxaysa waddada halbowlaha iskuulka shacabsalaan ilaa iyo nook laga gaadho waa lagu dhibban yahay magaaladu kala go'an tahay wareeg dheer ayaa la galaa marka sababta loo xidhayna lagama jawaabi karo ma garanayno marka taas madaxweyne fadliga caawiya dhalinyarada hala furo shacabka loo furo arrimaha deegaanka jilaalkiina abaar baa ka dhacda gugana fatahaad
maxaa laga qabtay abaartana waa laga jawaabay markay dhacday jawaab ballaaran baa laga bixiyey fatahaadahana waa laga jawaabay waana natural disaster iska daa annaga ee dalalka horumare ee waxaystay ku dhacaan kuwaasi marka maxaad ka qabataan saamaynta natural disasterka baan u qaadanaya jawaabta abaarina waan ka jawaabnay fatahaadina waan ka jawaabnay jawaabtanadu ma tahay advocate kuba ku filanta mise kuma filla waa wax laga doodi karo laakiin diyaargarow ma la sameeyaa haa waa la sameeyaa arrinta mas-uuliyiinta la sii daayey iyo cadaalad u raadinta dadkii dhibanayaasha ahaa annagu aragtidaan qabno waxa weeye mas-uuliyiinta kiisaskii lagu eedeeyey gaarkaa waa laga sii dayn karaa laakiin commissionkii kolley dad baa inagala jooga registrationkii iyo dhibaatooyinka dhacay deegaanka iyo baarideedii waa la wadaa frameworkaga transitional justice ama cadaaladda kala guurka wax la yidhaha in la geliyo oo cid walba oo dembi ay cid u haysato lagu qaado go-aanka annaga ahaa sidiisii weeyaan wuu taagan yahay arrinta xaggee deegaanka aad u wadaa anigu iyo xukuumaddaydu waxaan deegaanka u wadnaa kow deegaan nabada deegaan dadku ay xor yihiin iyo deegaan nolosha dadku wax iska beddesho waxaan aaminsanahay saddexdaa tiir ee muhiimka u ah visionka xukuumaddannada saddexdaba wax weyne ka hagaagayo deegaanku nabadiisu aad bay u fiican tahay marka laga tago isku dhacyada qoomiyadaha ee na lagu qasbay meelaha qaarkood kuwa aan xalinina way jiraan nabadiisu aad bay u fiican tahay shaqooyin dhiban oo amniga u baahan way jiraan oo law enforcement ama in hay-adaha amniga la adkeeyana u baahan waaqaca bulshadana in kor loo qaado u baahan way jiraan waana shaqooyin sii socon doona waxaan aaminsanahay xorriyadda dadku inay aad uga fiicantay sii ahaan jirtay xorriyadda saxaafadda xorriyadda qowlka xorriyadda ganacsiga isdhexgalka muujinta dareenkaaga xorriyadda diinta in wax badan iska bedelay oo tallaabo ballaaran oo isbedela laga sameeyey intii muddadii xilka aan joognay ee xukuumadda ay dhisnayd dhanka dhaqaalaha waxaan aaminsanahay deegaanka warshadaha haddaad tidhaa beeraha wax soo saarka investmentiga in ishu ay macallin tahay oo tuulo iyo caasimad iyo meel walba nolosha dadku ay wax iska beddeshay dhammaan baahiyii shacabku ma la taabtay lama dhowaa weli dad saboola oo fiqiira oo baahan manahay haa laakiin tabartii dowladdu ay lahayd inay kor soo qaado bulshada inay geysatay baan qabaa wax badan oo dhiman oo waxna annaga lagu dhiman yahay waxna jiilasha dambe ay u yaalaan waa jira shaqadan waxaan ka hadlayaa amniga iyo xorriyadda iyo dhaqaalaha korqaadada bulshada in wax laga bedelana waa generational task waa shaqo generations u baahan weeyaan shaqo hal maamul uu dhammayn karo maaha baan qabaa laakiin bijkan qabnaa kaa weeyaan waxna uu hirgalay waxna waan ku jirnaa baan qabaa waddada xidhan waa specific waa codsi gaara waan jeegaraynaa sababta loo xidhay haddii laakiin su-aashu tahay bajaajta maxaa waddooyin gaara lagu diiday dee waddooyinka ina la kala calaamadiyo oo zaxmadda la kala yareeyo wax jijigoon ku kooban maaha marka taasoo kale dee kuma dhici karto macnaha dadkii waa la xaniibay maaha laakiin waddooyinka in la kala nadaamiyo waddadan waxa ku habboon waxaas la yidhaahdo wax khaldan maaha waan eegaynaa laakiin haddii ay go-aanada noocaas haddii caqabado shacabka dhib ku ay yimaadaan maadaama ujeeddadu shacabka in la dhiba ayna ahayn ee shacabka in wax loo qabto maadaama ay tahay oy baabuurta ka mid tahay gaadiidka zaxmadda la yareeyo haddii caqabada ka yimaadaan dee go-aanno la qaato dib loo eego iyada ugu horreyn mayso laakiin waxaan qabaa inaan shakhs kastaaba isagu dee meesha wixii la qumanaan lahaa go-aan kaas ay la quman inaynan ku soconba ay la quman kolalka qaarkood la ixtiraamo awaamiirta iyo dadka awaamiirta ka fikira inay yihiin dad sidaasoo kale dadka u danqanaya qasab qofku markuu mas-uul noqdo inuu ummaddii ka go-ay oo ummaddii col yahay macnaheedu maaha aragti noocaasa la qaataa qofka bannaanka joogaana ummadda u danqanayo aragtidaas sax maaha marka dadka hogaaminta ee go-aanka soo saaraya iyagu waxay ka duulayaan wax naftooda maaha waxay ka duulayaan dadka sidaan wadana hadday khaldan yihiinna waa la eegi hadday saxsan yihiinna inaan qaarkeen lexjecelo gaara oo shacabka qaadanno qaarna ku tilmaamno inaan dadka daneynayn ilama qumana madaxweyne waxaad ogtahay caasimadda dalka magaalada Addis Ababa koka la qoondeeyo bulshada ku nool waxa lagu qiyaasaa inay 5 milyan tahay sidaa daraadeed dadka inta la eegay 5 milyan maamulka magaalada Addis Ababa wuxuu ku guuleystay 70% in la xakameeyo adeega dadweynaha ee magaalada uu kala gooshaya yacni maadaama uu dadku fara badan yahay basaska magaalada ka shaqeynaya iyo hadday bareefad noqdaan iyo hadday dawlad noqdaanba waxa la xakameeyo 70% in lagu guuleysto oo adeega bulshadu yacni uu isu socdo caasimadda deegaanka Jigjiga haddaan soo noqdo waxa lagu qiyaasaa dadka ku nool 800,900,000 in gaadhaysa lagu qiyaasaa isbedelkii kadib 6 sanaad joogtaan
ilaa hadda maxaa hortaagan inaad ku guulaysataan in waxa weeyaan adeega magaalada gudaheeda caasimadda ah in waxa weeyaan in lagu guulaysto oo ugu yaraan la kafargareeyo 50% tusaale ahaan jibriga haddaad aragto hadda dadka jibriga ka tegaya ee suuqa tegaya baa taksiga ku adag yahayba dadka community-ga ka adag dhib baa ku imanaya kuwa Sheekh Nuur Ciise ka imanaya dhib baa ku imanaya kuwa waxa weeyaan dulqabow degan dhib baa ku imanaya su'aashaas waa su'aal aan qabo tala bixin baa soo jeedinaya tala bixinta soo jeedinaya waxa weeyaa qaab dhismeed baad dhaadhiciseen madaxweyne gobolada waxaa jira hogaamin gobol baa jirta hogaamin degmooyin baa jira hogaamintii waxaad u dhaadhiciseen awoodii baad u dhaadhiciseen yani automatically waxaad dhaadaan sidii hadda ka hor hogaaminta lagu qiimeeyo deegaanka in lagu qiimeeyo gobolada iyo degmooyinka in dib lagu qiimeeyo tii kolkaa waxay horseeday cadaalad darre horseeday gudoomiyaha gobolku wuxuu bedelayaa gudoomiyaha degmadu diidayaa uu bedelayaa gudoomiyaha degmadu madaxafseedku uu diidayaa hebel uu bedelayaa sidaa darteed talahaan waxaan soo jeedin lahaa in qaab dhismeedka lagu soo celiyo madaxweyne deegaanka sidii hore lagu qiimeyn jiray in hogaaminta mar la soo xareeyo oo golaha wasiirada loo qaybiyo ku-xigeenada loo qaybiyo oo orneylka laga buuxinayo xubnaha xisbiga qaab sharci ah oo qofkuna garanay in looga buuxiyo tusaale ahaan gobolka Jarar oo kale kolka la qiimeynayo in hogaamin ka soo jeedo gobolka City yani oo wasiirada ay qiimeeyaan gobolka Qorraxay dadka qiimeynaya inay afdheer ka soo jeedaan qaab nooca taladaas aan soo jeedinay aad bad maasan arrinta ku saabsan Addis Ababa 5 milyan qof baa ku nool 170 adeega daatada aan u hubo la sheegay laakiin adeega Addis Ababa ee dhanka transportiga adeega jijiga isku mid maaha marka la leeyahay laba magaalo isku dhigma oo isku miisaaniyada oo isku focus midna maaha marka taas waxaan isleeyahay sideeda su'aasha loo soo qaado jijiga adeega shacabka hore loo qaado maxaa laga qabtay in la yiraahdo caasimadii dalka ee dowladda federaalka fadhiday ee intaas miisaaniyad galisay ee miisaaniyadda ka soo baxda 45 bilyan miisaaniyadda deegaanka Addis Ababa ay tahay halka deegaanka Soomaaliya miisaaniyaddu ay tahay 30 bilyan ay tahay in la barbar dhigo ila ma aha waxaan ka qaadanayaa su'aasha ugu adeeg maxaad ka qabateen dadaalo la sameeyay way jiraan xagga transportiga laakiin wax badan oo la rabay in la qabto waxa loo qaban waayay miisaaniyad la'aan ageen su'aalaha badankoodu waa su'aalo ku salaysan baahiyaha maxaa wax looga qaban waayay mas'uuliyadda dawladdu baahi kasta wax laga qabto maaha waa miisaaniyaddii ay haysay wixii ay u qorshaysay wax ka qabato miisaaniyadda ay hayso waa wax kooban waxa laga yaabaa deegaanka in badan oo ka sheegay arrinta cuudaana waa loo arkaa laakiin maaha waxa laga yaabaa deegaanka baahidiisu inay 500 bilyan tahay miisaaniyadda aad haysaa hadday 50 bilyan tahay waxa lagu weydiinayaa 50 bilyan ee haysay maxaad ku qabatay 450 bilyan ee maqan te qorshe looma haynba marka horeba waayo waa baahiyo ka badan tabarta dawladda aragtidaas in maaragtay iyadana la qaato qorshaha dhexdiisa laftiisa laakiin khaladaad ka jiri karaan qorshaha xooga in la saaro oo aan qiimeyn baahiyaha aan la qiimeeyo qorshaha yaan soo jeedin lahaa awood dhicinta iyo qaab dhismeedka awood dhicinta ku sii soconaynaa waa arrin saxa deegaan dawladnimadiisu ay jijiga ku urursan tahay oo xarunta xafiiska madaxweynaha kaliya looga arrimiyo oo hal maskax ay sax ay hogaaminayso ma rabno mana aha qaabka dalkuna u shaqeeyo adduunkuna u shaqeeyo wax kasta oo talaabo oo la qaado na goldolooyin ba ka yimaada teasing problems ingiriisku yiraahdaa ilmuhu markuu ilkaha soo baxayaan ay cunaan oo kala weeyaan soo wixii teasing problems ee ka dhasha dhaadhicinta waa inaan saxna degmada Hiblaayo gudoomiyaha jooga khalad buu sameeynaya gobol hebel buu iska eriyay waa inaan nidaamkii lagu sixilaa sameynaa laakiin awood dhaadhicintu annaga waxaan isku qiimeynay in sidii loo baahnaa aan u dhaadhicin awoodii jijiga fadhiyo miisaaniyadda in aan dhaadhicino weey shacabku wuxuu u badan yahay gobolada jijiga ma joogo marka shacabka in deegaanka Soomaaliya laga waayo dad gobol iyo degmo hogaamin kara oo cadaalad sameyn kara oo ay noqoto cadaaladda aan isku noqono jijiga isku noqono nidaamkaasi uu sax yahay ma qabno dalkuna saa uma shaqeeyo mas'uuliyiintana in la ixtiraamo oo go'aanada lagu ixtiraamo oo loo hoggaansamo waa qayb dhiman weeyaan qof ogol wasiirka federaal jijiga jooga markuu wax go'aamiyo yaa laga yaabaa kii gobolka jooga inuu diido yiraahdo waan ku dacweynayaa waxaan tagayaa jijiga ka soo dacweynaya marka ku tagrifal awood haddii jirto ma wada dhaqangelin ma qabaano ilaa hadda oo qiimeyntu dib sadaan sameynay dhaadhicintii gobolada ay dhaadhicin awood maxaa u dhaadhicin isku qiimeynayna marka cabasho laakiin gobol iyo degmihii mar walba taagan tahay dadkuna shaqada way barbaranayaan markii deegaankeena awoodda loo soo dhaadhicinayay dood baa jirtay Soomaalida mashaariicdan waxaan garanayaa soo gaaray iyadoo dugsiga afarka galaas ee la dhisayo qandaraaskiisa Addis Ababa lagu maamulo wasaaradda federaalka ee waxbarashada iyadoo qandaraasyada maamushada anigu contractor aan u shaqeyn jiray oo joogi jiray oo waraaqaha geyn jiray oo leeyahay jijiga lama geyn karo marka iyada
sababta awood ku filan ma laha haddii waaga halkaa lagu hayn lahaa hadda ma hirgasheen inaan eegana waxaan ka hadlaynaa maxaa lagu maamulayaa laamiyada Addis Ababa laamiyada Addis Ababa lagu maamulayo iyo mashaariic jijigaha la keeno tabartii waan dhaafnay iskuul iyo caafimaad iyo waxa waan dhaafnay mega projectska annagu aan bixino hadda la maraya saasoo kale gobolada iyo degmooyinkana haddaan awoodii la dhaadhicin oo aan miisaaniyadii la dhaadhicin oo go'aanadii la dhaadhicin ma dad kooban oo boqol aan ka badnayn oo jijiga fadhiya yaa ummadda dhan u talin kara marka arrinta fikrahan ma khaldana laakiin wixii go'aanay ka khaldan gobol iyo degmo inta loo duustaago saddexdii bilood ba qiimeyn baa la sameeyaa qofka gobolka jooga haddii ku takfal awoodeed uu sameeyo laga yaabaa 3 bilood inaan la maqal laakiin marka baarlamaanka baxo soo eega shacabka la soo wareystaa annaga xafiiska madaxweynaha dad dira xafiiska qorsheynta dira kormeerka xisbiga la sameeyaa intaas oo mechanism xogtii lagu soo ururiyaa ku go'aan qaadanaynaa laakiin cabashada banaanka dadku ka sheegayaan kaliya kuma go'aan qaadanayno marka waxaan qabaa anigu dhaadhicinta xaggeeda in go'aan sax uu yahay sidii loo baahnaa wili una gaadhin in la sii wada ay tahay wixii goldolooyin ka dhashana in la turxaan bixiyo oo la saxo yaan aaminsanahay maasantii